Just staggering! I don't think I've ever witnessed emotions like I've seen today, from crowd to the field. Michael Owen wins it! bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena sportska maanta oo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay 13 bisha 8 2021 waxaan maanta barnaamijkeena ku faaqidi doonaa furitaanka horyaalka xiisaha badan ee Premier League waxaa caawa daha laga rogi doonaa horyaalka xiisaha badan ee Premier League waxaana kulanka ugu horeeyo lagu furi doonaa naadiga Brentford oo soo dhaweey doonto naadiga kubadda cagta Arsenal. Brentford ayaa heerka koobaad u soo gudubtay 1947 Arsenal ayaa seasonkii hore ku dhameysatay kaalinta 8aad. Arsenal ayaa la filayaa caawa inay wacdaro dhigto waxayna soo iibsatay ciyaartoy muhiim ah. waxaa kamid ah ciyaartoyda ay soo iibsatay naadiga kubadda cagta Arsenal. Ben White ay kasoo iibsatay naadiga Brighton waxayna ku soo iibsatay 50 milyan halka Lukonga ay ku soo iibsatay 18 milyan. Arsenal ayaa caawa way doonto ciyaartoy muhiim ah sida Thomas Partey oo qadka dhexe uga ciyaaro, Robin Holding oo daafac dhexe ah iyo Gabriel oo ka ciyaara daafac dhexe. caawa natiijada hadii aan saadaalino ani ahaan waxaan rajeynayaa in Arsenal ay ku badi doonto 2-1. dhageystayaal saaxiibayaal fikirkiin waa muhiim wixii saadaalinta iyo siday kula taa noogu reeb commentiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. I don't think I've ever witnessed emotions like I've seen today, from crowd to the field. Michael Owen!